noocii camal rubi ay tahay xaafadayda kasoo tegay xafaayadii adeegii shoobina iga go'naa ciyaalka saaxiibkay uga soo tagtaan adeeg soo doontaana lee qabta waxayna u dhaqmeen inuu dalku yahay mid fawdo ah oo aysan ka jirin sharci iyo kala dambeyn dabcan waad garateen wejiyadan in badan ayaad baraha bulshada gaar ahaan aalada TikTok-ga kala socoteen muuqaalo iska soo duubeen oo isugu jira majaajilo sheekooyin iyo qaar kale oo badan oo wata dhiilo colaadeed iyo kicin bulsho abuuray si gaar adiga aad qayb uga tahay oo ah inaad hawada isu mariseen aflagaado sida ku xusan qodobka 451 faqradiisa labaad xarf balse sheekada hadda way soo dhaaftay TikTok dadka aragteen iyo kuwa kale badan waa eedeysanayaal ku jira qaybta dambe ee loogu talagalay maxaabiista waxaana ay hortaageen maxkamadda gobolka Banaadir xeelali ku xigeen Jamaal Maxamed Axmed oo xafiiska xeelalaha guud ee qaranka dacwadan ku matalayay ayaa sharaxaya sababta dadkan ay hortaageen maxkamadda gobolka Banaadir waxa kale oo ay ku xadgudbeen qodobka 720 lala akhriyo 34 xeerka nabadgelyada guud iyagoo isla taariikhdaas 18 bishii shanaad 2024 abaaro 9:30 PM degmada warta nabadda ay isugu yimaadeen iyagoo isballansaday si ay u galaan dagaal safeyn ah isu imaatinkaasna uu abuuray khalkhalgelinta nabadda deegaanka deganaanshaha iyo nolosha bulshada sababtoo ah habeenkaas 3 saac ee bar habeenimo ay isugu yimaadeen warta nabadda barxad ku taal iyagoo isu ballansaday inay dagaal safeyn ah galaan waxa arki kartaa meelaha ay ka kala yimaadeen iyo meesha ay isugu yimaadeen qaarkood xaafado aan ahayn warta nabadda ama degmooyin aan ahayn warta nabadda ay ka yimaadeen si ay meeshaas dagaalka safeynka ah ugu galaan oo ay isugu ballansadeen 18 bishii shanaad ee sanadkan ayaa 19 eedeysane ciidanka booliiska habeenkaasi iyo maalintii xigtay gacanta ay ku soo dhigeen maadaama ay qalqal geliyeen amniga guud ee degmada warta nabadda isku socodka gaadiidka inta u dhaxaysa isgoosyada Sinai ilaa iyo Florence waxaana isugu soo baxay in ka badan 300 ruux oo kala taageersanaa dhalinyaradan oo laba koox u kala saftay gabagabadii waxaan ku soo gabagabeynay oo kiiskan nooga soo baxay in eedeysanayaasha 7 ah ay yihiin kuwa ugu saameynta badan baraha bulshada qaarkoodna ay ku xiran yihiin milyan iyo ka badan qaarna ay ku xiran yihiin half million people dadkii Soomaaliyeedna ay halkaas uga bilaabeen kicin aflagaado aan gabasho lahayn oo wadankii dhamaa inay ku khalkhalgelin gareen ee noo soo baxday oo ay sababta ayaga lahaayeen oo nacayb iyo kala qoqobid bulshada Soomaaliyeed ay ka shaqeynayeen sida laga arki doono fiidiyoyada aan ku soo wareejin mudan xeeraaliye waxaan noo soo baxday eedeysanayaashaasi inay fildambiyada aan ku soo eedeynay oo ay ka mid tahay kicin bulsho khalkhalgelin nabadgelyada guud dagaalo oo safeyn oo lagu hoobtay inay meeshaas ka dhaliyaan intaas ayaa noo soo baxday oo khatarteeda lahayd booliiskuna uu ka hortagay haddana soo ka hortagi lahayn meeshaas wax aan maanta qurux badnayn aan maxkamadda la hortaagi lahayn la soo hortaagi lahayn uusan meeshaas uusan guri ku oolin ama sanaasha maxkamadda hor fadhiyo qof ka mid ah uusan goob ganacsi uusan ku lahayn oo marka aan weydiina hadafku meesha u yimaado oo cadeen waay macnaha ay ku saleysneed inuu lid ku ahaa ama uu u safnaa labada qof ee markaas ku balamay TikTok-ga inay u kala safnaayeen qaarkooda waxay ka yimaadeen degmooyin dhaadheer oo sida degmada Boondheer iyo Cabdicasiis dagaalka ugu soo bixin macnaha bajaaj soo raaceen ayagoo hubkooda wato xafiiska xeelaliya guud ee qaranka oo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ayaa maxkamadda gobolka Banaadir u gudbiyay 19 eedeysane oo 15 kamid ay ahaayeen gabdho iyo 4 wiil waxa sidoo kale xafiiska uu soo gudbiyay cadeymo hordhac oo isugu jiray fiidiyoyaal watay kicin bulsho iyo hadallo naceeb ah oo ay soo dhigeen aaladaha isticmaalayeen waxaana qaarkood ay wateen hub
taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir ayaa la sheegay in habeenkaasi uu ka hortagay dhacdadaas waxaana xafiiska xeelada guud ee qaranka uga mahadceliyay dhacdadaasi in ay hakiyeen xeelada ku xigay Jamaal Maxamed Axmed ayaa waxa uu dhacdadaasi ku xireeyaa dhacdo ka dhacday dalka Rwanda 1994 taasoo hadal ka baxay warbaahinta oo sabay in kumanaan qofood nafta la dhaafiyo muddo 100 maalmood gudahood ah ay aalada TikTok la joogaan waxyaabo anshaxa ka baxsan oo ah aflagaado joogto ah hanjabaad ay waalidiintooda ay waayayaan ay qabiilada ay caayayaan isirnacay taasoo haday sii socoto gaarsiin kartay hadaan laga hortagin ciidanka booliisku aysan ka hortagin waxyaabo ka waaweyn oo ay laga yaabay dad kale inay soo galaan dibna uu ka dhaco sababtoo ah aalada social media ama warbaahintu wax fiican waa lagu faafin karaa si cagsi ahna waxyaabo aan wanaagsaneyn waa lagu faafin karaa waxyaabihii ugu weynaa ee dagaalkaas kiciyay wuxuu ahaa idaacad laga sheegay madaxweynihii markaas diyaaradda la dhacday in qabiilada meesha deganaa mid ka mid ah uu sababteeda lahaa taasina ay gaarsiisay wadankaas in malaayiin qof ay iska dilaan marka social media marka fiirisidna waa sidaas oo kale haddii la sii wado waxyaabahan hadda ka socda TikTok oo ah isirnacaybka caayda aflagaadada handadaada in ay sii badan doonto oo ay sii gaari doonto meel aan laga soo waaqsan haddii aan gacan bir ah aan loo qaban intii uu socday habraaca dacwada ee 143 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ayuu xafiiska xeelada guud ee qaranka eedda kala laabtay 10 eedeysano oo isugu jiray 6 gabdhood iyo 4 wiil waxaana dacwadda ku soo haray 9 gabdhood oo ay ka mid yihiin Sihaam Tahliil Sacdiye Galmudug Farxiye Soona Iftiin Model Nashaad Nalka iyo kuwa kale kaasoo eedeysanayaal ay ka yihiin 9 eedeysane oo xafiiska xeeladaha guud ee qaranka ku soo eedeeyay inay ka qayb qaateen dagaal safayna abaabuleen falal lid ku ah amniga sidoo kalena ay sameeyeen inay kooxay soo abaabulaan fadhiga maanta ee maxkamaddu wuxuu ku saabsan yahay dhageysiga qodobka 116 oo ah difaaca eedeysanayaasha xafiiska xeeladaha ku soo eedeeyay qodobada sare ku soo sheegnay 9 eedeysane oo maxkamadda soo istaagay ayaa la weydiiyay su'aalo la xiriira eedda uu soo gudbiyay xafiiska xeeladaha guud ee qaranka waxay dhammaanba meesha ka saareen waxa loo haysto waxaana mid walba ay sheegtay inaysan ogeyn dambiga lagu soo eedeeyay Sihaam xafiiska xeeladaha eediisa markii uu kugu soo ogaayay wuxuu sheegay in aad abaabushay dagaal adiga oo kiciyay bulsho kuna ballamiyay adiga iyo tiim iska soo horjeedin inta u dhaxaysay iskooyska jidmarixaan ilaa Siinay iskooyska Siinay arintaas nooga war arintaas ma jirto wax dagaal hor dhac ma jiraan maya abaabulka lagu eedeeyay muxuu yahay oo inaad dagaal abaabushay abaabul dagaal lagu eedeeyay ya abaabul dagaal lagu eedeeyay ma jiraahe ma jiro adiga TikTok walaada maxaa kugu qoran Sihaam Tahliil halkan waxaa la soo bandhigay video xafiiska xeeladaha soo gudbiyay adiga oo caytamay arintaas maxaad uga jawaabay caytino see adiga oo dad kale muxuu ahaa caysi ana caysa ma caytino halkaas video lagu soo bandhigay adoo hadlayo muxuu ka hadlay videogaas dagaalku ma jirin muxuu ku saabsanay video caadi ah ana guriga joogo video aan caadi ahayn ma jiree
محوكو سابسنا فيديو محوك هلاي dagaal iyo waxaas dhan ma ka hadlin محوك هلاي فيديو oo mar hore ahaa فيديو محوك هلاي مرة إيه مرة من الناس كم ودين فيديو كان وصاب بنجي أو أدو على هذا أو أد أركتي محوك سابسنا فيديو عادي اسناب ليس كدوبا بس أنا guriga jooga le عادي محاوط قنادي dagaal iyo waxaas فيديو aan ahayn waxaan ku weydiinaa su'aasheedu waxa waaye fiidiyowgaas muxuu ku saabsanaay waxa aad uga hadlaysa maxay ahaayeen waxa ku hadlaya ma jiraan waxba kuma hadlayn kaftan la caadi فيديوغا أنا عليها بس وحكلا فيديو adiga aan leedahay فيديوغاس فيديو wuxuu ahaa oo ciyaaro xiriir garoonayheed ها استادي مقدشو hay هاكاس mid kale ma jira la soo bandhigo no xafiiska xiraantu wuxuu kugu soo eedeeyay inaad kicisay qabaa'il inay istagaalaan inaad sababaysay oo aad kicin bulsho sameynayso ma jirto wax fiidiyoo oo dagaalkaas ku saabsan oo aad leedahay ma jiro ma jiro mana la keenin wax hadala oo aad leedahay oo qabaa'il lagu kicinaana ma jirto no ma jirtaa bulshada inaad samayso ma jirto yaanya xataa uma doonan cagteeda ma saarin mana degni adeegna uma doonan dagaal ka dhacay xarriyaali war ma kaysa wax waran ka hayo ma jiro ani ilmooley ahay teemka wax waa dhacal dhahaayna teem ilma aan siisiisa hurda oo kala diyaariyay waa marka ma tigin adiga ma tigin maxaad xog ka haysaa wixii dhacay eerigidaas sigtooga waxa ka socday howlahaas hadda xog ka hayo anaa warjicli u aadi lahay maho xog dhan ma ka hayay magaca ikraan cadaa faare xagee laga xiray kan xaafadeeda xagee ku taal wardhiile geejaceyl goormaa lagu xiray habeen 2 saaca la xiraano caani cajiin laga soo dir alaamiga laga qabta dhakabliisi xagee taagneed marka lagu xiray miiska caanaha korkiisa taagnaa isgoyska geejaceyl taagnaa mudan gudoomiyani xafiiska xeerlaalintu halkaas wuxuu ku soo bandhigay video adiga oo wato bir wato soo adiga qofkaas ma hayn صح أنا ونفتركي هاي حكوا مشاس وين قدومي وقت يا وقت وراي دقال كلو ميل كلو لسوق الطباي وحقيه مشاس حقيه وابري قدومي يلا دقاليس كواسين مداسين يعني قبر اسين اسل دقالي هاي اكاس marka dagaalkaas ma ahayn kan وين قدومي دقالكاس ما ahayn kan waa la xiray xitaa muddo 3 bari xirnaa dagaalkaasna waa dagaal hore waxaana waa foosto wax dagaalka hadda ee jiran ma qadoomiye wax jiran wax kama jiran video halkaas lagu soo bandhigay xariyaal ma ahayn xagee waa Nairobi ya Nairobi joogtaa Nairobi jooga video la keenay okay muxuu ku saabsanaa video muxuu ku
saabsan wax gooni kuma dhex arag ya caadi laan iska sheekeynayo la isku jira la arka waska sheekeynays xafiiska xeelaanta wuxuu ugu soo eedeeyay inaad abaabuleysay dagaalo qabiil iyo kicin bulsho kama mid yihiin ya ma jirto waxaas qareennada difaacaya eedeysanayaasha ayaa fadhiga maxkamadda difaacooda kusoo bandhigay in eedeysanayaasha lagu soo qabtay meelo kala duwan ayaga oo ku jiro howlo u gaar ah islamarkaana aysan shaqo ku lahayn abaabul iyo kicin dadweyne wuxuu eejiisu kusoo koobay in xafiiska xeelaalyuhu oo matalaya qaranka Soomaaliyeed oo dhibana ka yahay qaranka Soomaaliyeed ma muuqataa aflagaado hawada loo mariyay ama cid astaan u ah qaranka madaxweyne calan ama markaasi bulshada ay ku kooban tahay qaranka Soomaaliyeed midiga maxay guriyaan u isticmaalaan inay isticmaalaan la dhigay weligeed hub maqaadan saacadi ma hub qaad weligeed hub maqaadan maxaa ku falaysaa maxaa ku kallifay hali ma hub qaadat nashaab ma hub qaadat midna ma sheegi karo laakiin afka ma dhaafto wuxuu leeyahay huwa haystin haddaba mudana guddoomiyey garsoore maxkamadda sharafta leh waxyaabaha isweydiinta mudan waxay tahay qodobka 444 ma dhacay dagaal sifayn ah oo laba kooxood isaga soo horjeedo haddii uu dhacay ma ka dhalatay natiijo wax lagu eeday karo haddaba jawaabtu waxay tahay maya in natiijo ka dhalatay iska daay waxaanba dhicinba laba kooxood ama dagaal sifayn oo laba kooxood isaga soo horjeedo ayaan dhicinba mudana gudoomiye ayadana askariyad maaha hub malaha dawladdu ma shaqeyso wax hub shaqo kale kaliya waxay ka ahayd علشان social media ku jirta social media ku kala kacsan ka mudana gudoomiye ayadu markay miskoolada haysadana mudana gudoomiye ma jirto qof si gaar ah ee magaceeda u sheegtay ee ku handadayso heblaayaan gudilaya ama heblaayaan san ku yeelaya mudana gudoomiye habeeraatay kuma jirto kaliya waxay leedahay miskooladan anaga sameeyay waana kulli waa qof dumar waa fan booy mudana gudoomiye wax fal dambiyeed arintaas ma noqon karto booliskii saasmeeyay oo oobiga muxuu ahaa degmada yaaqshi ee ku qorantaa 10 saac oo habeenimo inuu soo qabtay farxiyo xafiisku saraakiishii sameysay oo inuu soo xiray inuu soo xiray mar gudoomiye cadeymaha fiidiyoos codka ah mukaladeedu ma ahan sida ay sheegtay maxkamadda tayada markii faqradda koowaad qodobka 106 waxay ku jawaabtay codkaas codkayga ma ahan akoontiga ama userka laga isticmaalayna userkeeda rasmiga ma ahan xeerlaaliye ku-xigeen Jamaal Axmed Maxamed ayaa ka codsaday maxkamadda gobolka Banaadir in eedeysanayaasha lagu xukumo ciqaab u dhiganta ficiladii ay geysteen labo in lagu xukumo ciqaabta ugu adag ee ku xusan qodobada aan ku soo eedeynay sida ku xusan qodobka 121 heerka xabka ciqaabta Soomaaliyeed qareennada ayaa dhankooda maxkamadda ka codsaday in maxkamadda ay iska diido eedda xafiiska xeeladaha guud ee qaranka isla markaana xurriyadooda la siiyo eedeysanayaasha in maxaa la yiraahdaa eedda sharci baalmarsan lagu waayo muwakkiliintayda si waafaqsan xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed uma naqdaan xabsi daba uma naqdo saddex bilood ay xiraayeen waa dhibaataysan yihiin uma naqdaan laga xajiro wali inta dhiga in wax laga xajiro yow caayo yow dilay sidoo kale luqantooda xur laga dhigo dadkii damiintay maadaama damaanad banaanka ku joogto in loo celiyo qarash damaanad haddii ay ka taalo maxkamadda sidoo kalena in la diido codsigii ahaa baalmarsanaa dastuurka kumeelgaarka ah iyo shuruucda kale dalka ahaa in la xayiro kootada ay baraha bulshada u isticmaasho gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud Daman ayaa soo gabagabeeyay dacwadda waxaana uu sheegay in maxkamadda ay ka soo saari doonto xukun dacwadani